بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سو دhowaada akhyaarta waxa waayey ciid mubaarak kul caam antum bikheer maanta oo taariikhdu tahay labaatanka bisha saddexaad 2026 maalin ciid eh maalin jimco ah maalin farxad leh run ahaantii maalmahan isma arkin waa la iska mashquulay waxaa lagu mashquulay alcibaada oo ramadaankii cibaadadiisii iyo shaqado ayadana cibaado ah marka waxaan isdhaha maanta xoogaa ummadda ciidana uga hambaliyey afarto xabana ku tur arrimo oo mataqaanaa run ahaantii aad iyo aad ii taabtay inaan idinla wadaago waana idin boobsiyaha insha allah ma jecli inaan waqtigiina qaaliga ah idinka maaragtay cuno marka waxa waaye dagaalada wadanka xoogaha ka bilowday ama mataqaanaa layskugu baaqayo especially maamulka koonfur galbeed oo kale taasaa xoogaa i taabatay sababtoo ah 35 sano kadib in la yiraahdo ummad soomaaliyeed waa la qaxinaa ama haddaan dagaal gelaynaa runtii arrin la qaadan kara ma aha waxaa ognahay ayaan dhexdaas in maamul goboleedkan jubbaland meelo ka mid a laysku dagaalay dhalinyaro badan ay ku dhinteen haddana wax ay ka soo bixin oo ninkii meesha madaxda u ahay magaalada muqdisho oo imaaday hoteelada ugu qaalisan layskugu yimid haddana waxa meesha ku dhintay shacab ama dhalinyaradii ku baaba'day hal mar aan layska weydiinin oo madaxdii soomaaliya ama qaybtii dowladda ka dhimatana aanan la dhihin dhalinyaradaas xaggay ku dhinteen qaybta maamul goboleed ka dhimatana aanan la dhihin dhalinyaradaas maaragtay xaggay ku dhinteen marka wax accountability ah meesha kama jirto kuwa hadda joogana waa sidaas oo kale marka 35 sano kadib in la yiraahdo waa la qaxaa hooyo soomaaliyeed la qaxina maaragtay cunugeedii maaragtay la dilaa run ahaantii arrintaas arrin aad looga xumaado waay nimankan maaragtay ilmahooda mataqaanaa dibadaha geysteen oo wadanka ilmahooda aana joogin inay ilmaha kale oo wadanka mataqaanaa hooyooyinkooda iyo duruufaha ku kalifay inay ciidanka noqdaan in lagu laayo wadanka wax loo dulqaadan kara maahan waana arrin qasab ay tahay in laga hadlo marka waxay ila tahay dhalinyarada inay arrintaas ku baraarugsanaadaan weliba ay ogaadaan odayaashan dadka leynayo waxa u haray way iska yartaa waxa u haray 70 jir waaye 10 sano aa u hartay kan 60 jirkaane 10 hadduu ilaahay cimri siiyo waxa u haray maaragtay maa bayna nabiga calaih slat slam wuxuu dhahay cumriga ummadeyda waa maa bayna 60 wa 70 20 sano ka badan ma u harin marka inaan arrintaas ku baraarugsanaano oo mataqaanaa aanan dagaal beebeenana la gelinin aniga saasay ila tahay midda kale oo rab inaan ka hadlo waxay tahay wadanka waxaa ka jira abaaro xoog leh marka lacagtan lagu dhameynayo dadka oo laysku dilayo ma abaaraha loo isticmaalo wasiirada wadanka wasiirada weli ma aragna wasiir intay shireen dhahayaan war bishaan mushaarkeena 50% aan siino dadka baahan dowladda hana la soo gaaro ayagoo dhahaya ma ahane lacagahan ummadda laga qaaday lacagahan dhulalka la gatay oo ummadda mataqaanaa la barakiciyey weli ma aragna ayadoo leeyahay ummaddan baahan hala siiyo waa maya dowladdii iyo wixii ku hareereysnaa waa sii taajiraya marka waxaa waaye dadka soomaaliyeed waa loo tashtay laakiin waxay u baahan yihiin kacdoon iyo inay iska kiciyaan dadkaana u baahan yihiin okay arrinta kaloo raba inaan ka hadlo waxay tahay arrinta shidaalka waxaa arkay dad u dabaaldegaya soomaaliya shidaala laga qodaa arrinta shidaalka marka waxaan rabaa 3 tusaale bis inaan idin siiyo 3 wadan tusaale ahaan waa wadanka South Sudan wadanka Nigeria iyo wadankan aan ku noolahay oo Norway intaba shidaal ay leeyihiin marka wadanka oo South Sudan wuxuu soo saaraa 150 barrels a day oo u dhigmato 2.2 to 4 billion a year oo lacag ah Nigeria 1.5 million barrels a day soo saartaa oo u dhigmata 40 to 70 billion dollar a day Norway 1.8 to 2 million barrels a day 100 to 150 billion dollar a day okay Nigeria iyo waa la socotaan iyo South Sudan taajiriinta waxa waaye dowladda iyo wix ku jira dadkooda kale waa dhinteen waa baaba'een ma fahanteen Soomaaliya xataa kasii liitaan waxaa kuu soo haray Norway 3 shay waa laga kafaalo qaaday waxaa laga kafaalo qaaday meesha ku noolaa lahayd seexa lahayd waxaa cuni lahayd iyo caafimaadkaaga saddexdaasba shaqo ama shaqeyn waa helay waxbarashada from
dugsiga hoose galaaska koowaad ilaa jaamacadda waa free bal lacagta shidaalka Norway investment iyo kayd ay ku sameeyeen waxa la yiraahdo olifone ay samaysteen in jiilka dambe lacagtan meel loo dhigay wax yar laga isticmaalaa percentage yar oo lagu kabaa mataqaanaa budgetka dawladda inta kale waxay dhaheen canshuuraadka iyo malaayga aad u dhoofisa intaas ku noolaanayna ma fahanteen maxaa keenay musuqmaasuqa tusaale idinkaga soo qaadaa laba ma aragtay qiso mid ka mid ah wasiirada oo ma aragtay markaas cadaaladda ahayd ayaa waxay samaysay waxaa la soo ogaaday journalistiyaal soo ogaadeen in ay qishtay imtixaanka waagii ay wax baranaysay warqadihii qishki markii la keenay waxay ku qasbanaatay inay iscasisho magaaladan aan degannahay naag oo maaragtay xisbigan midigta ayaa waxay markii ku guuleysteen gobernatoornimada joornaaladii waxay baareen kaarki visa kaarka xisbiga lahayd waxay u isticmaashay qadooyin private ah iyo safaro mataqaanaa private maaragtay xisbiga aynan maaragtay shaqo ku lahayn lacagta waxay gaaraysaa lacag 50 kun oo koron oo u dhigmata adiga ilaa $5 kun waxay ku qasbanaatay inay iscasiso xisbiga marka halkaasaan taagana annagana musuqmaasuq imagine meeshaan ka taagana waa ogtihiin madaxda dawladda meeshay taagan tahay xagga musuqmaasuqa iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo baahida iyo abaarta iyo baabaa waddanka ka jiro marka maanta haddii shidaal waddanka saas asigoo laga sii qodo ma waxaa ku nacfinaya inta hadda ma aragtay dhaqaalaha haysato oo mataqaanaa awoodda waddanka ku haysato mase inta hadda sii baaba'san jawaabtu waa iska caddaha taas marka walaalayaalow aniga waxaan dhihi lahaa mataqaanaa waddankan wuxuu u baahan yahay inay dhalinyarada u istaagto u baahan yahay maxaa yeelay doorashooyinka xitaa hadda raggaan dhahay mataqaanaa bilaa ka dhiman ama 2 bila u hartay madaxweynahan xaqiiqda marka la sheego waxa ay ka hadlaan oo kaliya waxa waa kursi okay weli ma aragtay nin dhahayo budget hebel si qalada loo isticmaalay waxay ahayd mataqaanaa in la geliyo arrimaha waxbarashada waxay ahayd in la geliyo arrimaha caafimaadka qof dhahayso weli ma arkin aniga kulli hadda adiga aragtay ma waxay ka hadlaan kaliya waxa waaye doorashada waa in la qabtaa doorashada waa in waqtigeeda lagu qabtaa waa in doorasho hesiis loo yahay la qabtaa why because kursigaas u jeedaa lacag bisoo rabaa marka waxa waaye cidna uma maqna ceello uma qodno waa baasha marka waxay u baahan tahay kacdoon shacbiya oo ma aragtay sax ah inay ma aragtay ay ummaddan u istaagto ma fahanteen waxa waaye dadka annaga waxaan uga duwannahay kaliya waxa waaye inaan ma aragtay ilowsho dhownahay ninka madaxda noo ah ama ma aragtay ka tirsanne inaad xaq iyo baadil ku saacidayso marka qurumaadka laga qeyliyay ee qaaq dadka wax ka qurumaadka laga qeyliyay ee qaaq dadka wax kaga siiyay nin walba mar buu qaadan jiray qaanso iyo leeb qarfo iyo mar buu seexan jiray qalanqal hoostii ha yeeshee qulub wada jirta ayaa qaniya ayuu dhahay abwaankii timcadde marka dadkan hadda wadamadan hadda hormaray oo F-35 iyo diyaaradahan ma aragtay B-52 iyo soo saaray oo hadda Iran oo kale lagu garaacayo xilliga ma aragtay qaanso iyo fallaaro la isku dagaali jiray waqtiga kulli ka hadli doonaa hadda waxaa la isku isticmaalayaa teknolojiyada ugu dambeysay AI hadda la isku isticmaalayaa Iran madaxdeeda wax lagu leeyahay AI ugu badan oo mataqaanaa xitaa guriga aad ku jirto la arkayo ma fahanti mar hadiiba hadda ka hor sawir laga qaado ama DNA-daada wax kamid la helay tintaadaba ha noqotee taas maraa insha Allah video ka sameey doona marka walaalayaal fadhiga ha laga kaco mataqaanaa special dhalinyarada waqtigeena waaye marka inaan waxba sugna ma ahan marka waxaan idin leeyahay ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير فدينا أنا كعنو this is our time